Monitoring Group waxay baaritaan ku samaysay iibsiga hubka ee dalaalinta hubka ee Muqdisho Baydhabo iyo Dhuusamareeb iyadoo og sida ay arintaasi u tahay mid xasaasi ah waxay kooxdu sheegtay inay si taxadar leh u baartay waxaanay soo heleen ilaa 20 dokumenti oo arintaasi la xiriira tan iyo bishii September 2017 ilaa Agost 2018 dokumentiyadaas ayaa muujiyay inay kooxaha hubka ka ganacsada ay heleen 48 kamid ah noocyada hubka kala duwan iyo rasaas lagu qiyaasay 297 mm iyo hal qoray oo nooca RPG-ga ah warbixintu waxay sheegtay in lagu arki karay calaamadaha in ay dawladdu soo degsatay hubkaasi qoriga AK-ga ayaa qiimihiisu ka ahaa Muqdisho 1300 ilaa 1500 bishii Abriil ayay warbixintu sheegtay in xaruntii militariga ee General Gordon ee Muqdisho la boobay kadib markii ay ka baxeen ciidamadii Imaaraadka ee tababarada ka sameynayay halkaasi laba kamid ah hubka suuqa galay ayaa laga qaatay xiradaasi sida ay sheegeen kooxda hubka ka ganacsada qiimaha qoryaha ayaa hoos u dhacay xilligaasi Cornel Khaliif Ahmed Xaashi Aflow oo ahaa taliyaha guutada 37 ee Muqdisho ayaa waxa laga qaaday xilkiisii kadib markii baaritaan ay dawladda federaalka ah sameysay lagu ogaaday inuu ku lug lahaa hubkaasi la iibsaday oo u dhaxeeyay 15 ilaa 25 qori oo AK ah iyo 2 BK 20 kamid ah hubkaasi lama soo helin waxaana mar kale Aflow loo magacaabay taliyaha guutada qaybta 12aad sida ay sheegtay warbixinta Monitoring Group tan iyo bishii Oktoobar 2017 waxay warbixintu sheegtay in dadka fuliyay weerarada Al-Shabaab ay xirnaayeen dharka ciidamada ee loogu talagalay inay askarka dawladdu xirtaan waxaana ay xustay in ilaa iyo 5 weerar ay ku fuliyeen dharkaasi mid kamid ah dadkii lagu dilo weerarkii lagu qaaday Villa Soomaaliya bishii February 23keedii 2018 ayaa waxa xirnaa mid kamid ah dharkii hay'adda UNDP siisay booliiska Soomaaliya xaflad ka dhacday Muqdisho 22 November sanadkii 2017 bishii Agost ee sanadkan waxa ay sheegtay Monitoring Group inay heshay tiro dhowr ah oo dokumenti ah kuwaas oo ahaa cadeynta mushaar bixinta ee ciidamada xoogga dalka dokumentigan ayaa muujinayay lacag cadaan ah oo ciidamada la siiyay waxaana ku qornaa magacyada kumanaan kamid ah ciidamada balse sawirka faraha ayaa ahaa mid isku mid wada ah qaar kamid ah dokumentiyadaasi waxa ku qornaa dhowr saxiix balse hal gacan ayaa wada qortay saxiixaasi dokumentiyadan ayaa looga gol lahaa in lagu muujiyo aaminaad iyo isla xisaabtan dhinaca mushaar bixinta ah sidoo kale waxay Monitoring Group ku xistay warbixinteeda in dad badan oo ay wareysato oo kamid ah ciidamada xoogga dalka ay ku ogaatay in qaar badan oo kamid ah ciidamadaasi aysan mushaar helin tirada ciidamada la sheegay in mushaarkooda laga soo qaaday bangiga dhexe ayay hay'addu sheegtay in ay ku saleysnayd tiro la been abuuray Monitoring Group waxa kale oo ay ku xustay warbixinteeda in lacagaha adeegyada iyo shidaalka ee ciidamada Soomaaliya si qalad loo maamulo tan iyo markii Soomaaliya qayb ahaan laga qaaday cunaqabataynta hubka sanadkii 2013 ay warbixintu sheegtay in dawladihii Soomaaliya ay heleen 20,000 oo qori iyo 75 milyan oo wareeg oo rasaas ah waxa hubkaasi ku jiray oo kale 70,000 oo rasaasta qoriga RPG-7 ah baaritaan lagu sameeyay awoodda howlgallada ee ciidamada militariga ayay sheegtay Monitoring Group in lagu ogaaday in 70% kaliya ciidamada militariga ay hubeysan yihiin hubkaasi qaar badan oo kamid ah waxa iska leh dad aan ahayn dawladda sida ciidamada ammaanka gobolada iyo qabiilo hay'addu waxay xustay in kala duwanaanshiyo oo u dhaxeeyo hubka ay dawladdu la soo degtay tan iyo markii qayb ahaan cunaqabataynta laga qaaday iyo hubka ay hadda haystaan ciidamada dawladda warbixinta Monitoring Group oo aad u dheereed ayaa qayb kale oo kamid ah waxay kaga hadleen dhaqaalaha faraha badan ee soo gala Al-Shabaab gaar ahaan kuwa ay ka aruuriso gudaha dalka iyagoo sameeyay bay yiraahdeen nidaam lacagaha ay uga ururiyaan dadka deegaanada Koonfureed iyo Bartamahaba waxaana ay kooxda Al-Shabaab ururiyeen canshuur xad dhaaf ah iyagoo u maray isbaarooyin iyo shabakado isku xiran waxaana ay qaabkaasi u isticmaaleen rabshado iyo cabsigelin Al-Shabaab ayaa sameysatay nidaam adag oo maaliyadeed waxaana ay ku saleysay 4 qaybood oo canshuur ah taasoo kala ah canshuurta gaadiidka tan badeecada tan dalaga iyo tan xoolaha waxay dadka ay canshuurta ka qaadaan siiyaan warqad cadeynaysa inay canshuurta bixiyeen bishii Oktoobar ee sanadkii 2014 ilaa March 2018 Al-Shabaab waxa u soo xarooday lacag dhan 4,059,015 oo lacagta Mareykanka ah gobolka Hiiraan oo kaliya
tan iyo bilowgii sanadkan ilaa iyo dhammaadkii March waxay al-shabaab soo ururiyeen lacag dhan $689,617 oo doolarka Mareykanka ah. Hiiraan oo kaliya ayaa la filayaa in al-shabaab ay ka helaan sanadkan 2018 in ka badan 3 milyan oo doolarka Mareykanka ah, taasoo korortay 22% marka la eego sanadkii hore ee 2017. tan iyo bishii Sebtembar 2017 ilaa iyo March 2018 al-shabaab waxay lacagihii ay soo direen ku kala direen nus milyan doolar ka badan waxay ku gudbiyeen kaash ahaan ama cadaan. lacag 300 oo kun ka badan waxa ay ku direen xawaaladaha dalka, halka 300 oo kun oo doolar lacag ka badanna ay ku direen adeega EFC ee shirkadda Hormuud sida ay warbixintu xustay. Warbixintan ayaa sidoo kale waxay wax ka qortay dhoofinta dhuxusha iyo waliba qaabka ay miisaaniyadda u shaqeyso iyo howlgallada al-shabaab. qaybo kamida ayaad ku maqli doontaan oo kale idaacadeena soo socda.